waddada ayaa socotaa, kadib waxaa kaa soo horbaxay 2 qof oo waddada socda. Markay bidhaantiin isku soo muuqatay oo isku soo baxdeen ayay qosleen. Haddaba maxaad aaminaysaa? Midkee baa tahay labadan qof? Mid wuxuu aaminayaa in 2 qof ay u qosleen sababtuna ay tahay waxay ka heleen kabihiisa cusub ama suudkiisa cusub ama shaarkiisa. Ku kalena wuxuu aaminayaa in sababta 2 qof ay u qosleen ay tahay in ay la yaabin yihiin falxumada kabihiisa, dharkiisa ama istaylkiisa. Wuxuuna aaminayaa inay asaga xamanayaan. haddaba haddaad tahay qofka koowaad ee aaminay aaminaadda positive-ka ah waxaad tahay qof loo baahan yahay. laakiin haddaad tahay nooca qofka labaad ee ka qaatay dhacdada aaminaad negative ah waxaad tahay qof aan isku kalsoonayn. wax kasta oo hareerahaada ka dhacana waxaad u qaadataa si shakhsi ah. haddaba waxaa la jooga xilliga aad ka bixi lahayd qafiskaas aad isku xirtay ee ka samaysan shakiga iyo kalsooni darrada. haddii adigoo gaarigaada u watay si tartiib ah oo raadinaya halkii aad ku baakimi lahayd uu qof kale gadaashaada ka yeeriyay hoonka gaarigiisa, maxaad dareemaysaa iyadana? ma waxaad u qaadan lahayd si personal ama si shakhsi ah oo waxaad dhihi qofkan aniga ayuu ugu dan leeyahay, intaan aniga ayuu dhibayaa, mise mar kale waxaad u qaadan doontaa si dhacdo dabiici ah oo nolosha ka mid ah oo adigana si gooni aan kuu qusaynin? tusaale kale, markan waxaan ka soo qaadayaa waxaad tahay hadal jeediye, waxaad saaran tahay stage, waxaana la hadlaysaa dadyow fara badan. mid ka mid ah dadka ayaa wuxuu la soo baxay telefoonkiisa wuuna ku mashquulay. mar kale haddana ma waxaad u arkay arrin personal ah ama waxaad is leedahay waxaa macquul ah inay fariin muhiim ah u soo dhacday? waxaa kaloo suurtagal ah inuu ballan uu qof la lahaa, mise waxaad dhahaysaa haa aniga ayuu ii dan leeyahay, hadalkayga ayuu isdhaafinayaa. aday kuu taalla xal xisaabtaana. tu kalena iga hoos saaxiib, waxaad la ballansaneed qof, laakiin marka xilliga ballantiinna ama kulankiinna la gaaray oo uu soo dhowaaday ayaa wuxuu hakiyey ballantii. wuxuuna kuu sheegay inay guriga howli ku qabsatay ama inuu mashquulay. waxaad iska soo aaday meesha kafeteriyada, waaba qofkii aad ballansaneedeen oo saaxiibadii iskala fadhiyo oo iskala fadhi ku diriraya. haye mar kale ma waxaad u qaadanaysaa personal arrin xun oo adiga uu kugu dan lahaa inay tahay? adig kuu taalla xal xisaabta kalena. marar badan wax kasta waxaan u qaadanaa si personal ah. qof ayaa wuxuu dhahayaa oraha kaftan ah ama fal yar oon jeclaysanaynin ayuu suubinayaa. waxaan dareemaynaa ciriiriyoon, waan ciriiriyoomaynaa. haddaba waa sababta keenaysa inaad wax kasta u qaadatid ama aan u wada qaadano personal ama arrin si shakhsi ah noo qusayso. sababku waa eegadeenna ama qabkeenna. eegadeenna ma doonaysa in la dhaleeceeyo. eegadeenna waxay doonaysaa in la mahadiya, nala soo dhoweeyo, nala sharfo, nala karaameeyo. sideen kaga takhallusi karaa ama ugu yaraan aan u yarayn karaa dareenkaas ah inaan wax kasta aan u qaato si shakhsi ah ama personal ah? aamin fikradda dhahaysa aniga iguma saabsano. macallin baan ahay tusaale, waxaan wax barayaa 30 arday oo fasal ku wada jira. mid ka mid ayaa wuxuu la hadlayaa saaxiibkiisa, ganuunacooda ayaa soo gaaraya. isla markii waxaan dareemayaa xanaaq, ciriiriyoon iyo culays. haddaba waa maxay sababta ciriiriyoonkaas aad u dareemaysid ama aan u dareemaya aniga? iga soo qaad sababta. waxaad dareemaysaa ama si saxsan haddaan u dhaho waxaa isdareensiinaysaa in arrintu adiga ay ku qusayso. waxaad gudahaada ka leedahay waxaan ahay macallin, waqti ayaa iga baxay inaan usoo diyaargaroobo leesonkan ama cashirkan. waan aqaan oo khibrad buuxda ayaan u leeyahay waxaan dhigaya ama aan barayo. saa daraaddeed waxaan mudanahay ixtiraam. haa waa saxan tahay, yaaba ku yidhi ma mudni, laakiin dhacdada ardayga adiga kuma qusayso. waa inaad aamintaa adiga kuma saabsano. waxaa laga yaabaa ardaygaas tusaale inuu saaxiibkii uu qalin weydiisanayo ama sheeko bargo' ku ahayd uu rabo in loo yar dhammaystiro ama inuu hubsado uu doonayo. saa daraaddeed adiga weligaa ha u qaadin inay ku qusayso. it is not about you. adiga kuma qusaysa, keligaa kuma qusaysa. it is about us. annagoo dhan ayay noqosaysaa. haa annagoo dhan ayay noqosaysaa, keligaa kuma qusayso. taa waxay kaa yarayn doontaa ciriiriyoonka iyo culayska aad dusha u ridata keliga. wax yar aan dib kuu celiyo. marka darawalka uu hoonka igu daba yeerinayay aniga ima qusin dabcan, ee wuu degdegsanaa. waa saa intaas oo tusaale oo kaleeto oo badan ayaa jiraan. ka digtoonow inaad wax kasta u qaadatid si personal ah. intaan ayuu ku egi muuqaalka maanta. intaan ku kulmi doono mid kaleeto oo la mid ah. nabadgelyo.